جودهان واحد ديجان كجري ستيل لاتن كل يوم بديجان كجرا أفريقيا يا كشقية أفريقيا كم يدوا كود الدولة ده لبيه طبعا قار بالولي هي لبنا واحدها هي له داكيو قليها سيدنا وحكيت بقولي شن حرمات وهذه هالجوبة تضبيه طبعا سوتشرينا أو اللي إحنا المجال كجري ستيل حرمات أو كجري دقمين كوي قارشنات حفيز كحول على عسين كلية اللي إحنا المجال وما على عسين الدقمين حفيز كحولية تدبوا حود أميني تدبوا حود أو سبورتيف بوليه سنة مساعد كان لابد كون إذا تمني اللي حدا ملا حوج اللي صار هو صدح قيبات بن حوج صارنا ودسمها هيديت قيبت أوروبا أنت حرفضها قيبت أوروبا أنت شقابور كوي مركان هيد إنستيشنال كباسي بيلدينغ سمينا محل فيلنا إن أوت النظر دسان لهلو هي إن لهلو أديك تياله أو سريين لهلو لباس نتيجة ينكر جينينا أوروبا أنت حرفضها محل كر جينينا حوج كرتي حرفضها له أو ترتمي كرين لهلو الربا شقابور كنا محن uga baahna in shaqalaanta la dhimo sidoo kale inaan shirkado tartami kara in heleen uga baahna adisi saabiga aan ku shaqeynaa ama fikradda cusub aan ku shaqeynaa xagga xirfadaha marka uu nimaado koow waa inuu yahay xirfado ku saleysan baahiyaha suuqa inay noqdaan baa la rabaa xirfado walba sida as usual looma dhigayo waa in baahi market demand assessment-ga ku saleysan tahay laba tababarada gaagaaban iyo silsilada taxanaha ah in lagu saleeyo baahida suuqa qodobka saddexaad waxa weeye hadda istiraatiijiyada cusub aan raacinay horumarinta iyo ka faa'iideysiga khayraadka aynu haysanno inaan horumarino at same time aynu ka faa'iideysano qodobka afraad ee dhinaca xirfado waxa weeye in ahmiyadda la siiyo dadka sababta kor in noqdo waxaan xirfadahan aan barayna ayaa loo baahan yahay qodobka kale xiga waxa weeye hirgelinta wadaniyadda iyo anshaxa xirfadeed xagga shaqo abuurka isaga markaan u yimaado koow waa inuu noqdo mid la xiriira kobaca dhaqaalaha waa inuu noqdo mid shaqo abuur ku saleysan xirfad waa in xoogga la saaro shirkadaha kobcaya shirkado dhan ma kuwa kobcaya xoogga la saaraya samaynta iyo fidinta nidaamka horumarinta ganacsiga oo midho dhal ah waa BDS-kii oo midho dhal ah in la sameeyo iyo shaqo abuur ku saleysan silsilada taxanaha value chain inuu ku saleysnaado la raba shaqo abuurkan aan sameynayna xagga xirfadaha markaan ku sii socdo casriyeynta kulliyadaha loo baahan yahay TVET modernization waxa la yiraahdo waa istiraatiijiyada cusub ee la qaato sidii hore inay ku socoto lama baahno iskaashiga bahwadaagta PPD laga sheekeynay PPPD laga sheekeynay public private partnership-ki in la xoojiyo oo la sii wado waa loo baahan yahay qaybo kamid hadda waan bilownay toddobaadkii ugu dambeeyay xafiiska horumarinta xoolaha waan wada shirnay inaan marka xafiisyada bahwadaagto dhan saa ugu soo soconay way noqon doontaa dan aan private-ka u gudubno dhammaanba saa isku xidhnaan iyadna waan ku soo soconaa waa istiraatiijiyada cusub ee waxay ka mid tahay xafiiska kulliyaduhu inay noqdaan xarumaha lagu kobciyo shirkadaha meesha lagu inkubadgareeyay lagu soo kobcinaya noqdaan kulliyaduhu iyaduna waa istiraatiijiyada cusub ee aan qaadanay kulliyaduhu inay noqdaan kuwo ganacsi abuura hadda ka hor tiknoolajiyada ay soo saaraan kulliyaduhu looma ogoleyn in iyagu enterprise gareeyaan ay sii iibiyaan sharci nidaamku wuxuu ahaa inay shirkado ku tababaraan shirkadaha sii badiyaan laakiin hadda waa loo ogol yahay TVET entrepreneurialization-ka waa loo ogol yahay in iyagu ganacsi ka noqdaan ay sii badiyaan oo ay sii iibiyaan kaydinta xirfadaha iyo farsamada casriga ah waa in la baangareeyo markaasi xirfadaha iyo farsamooyinka casriga ta ugu dambaysa waxa weeye kulliyadaha dhexdooda in laga asaaso engineerinka farsamooyinka casriga ah 11 kaas xagga xirfadaha ku shaqeynayna xagga shaqo abuurka 5 waan soo sheegay 6 kale waxa weeye siinta tababarada hal abuurka ganacsiga ee shirkadaha cusub maadiga jiran la siiyo BDS training in ganacsiga qoyska laga dhigo xarumaha wax soo saarka family business ka oo ideagiisi talahaan baa loo qaatay laakiin initiation-ku deegaankeenu ka yimid gaar ahaan madaxweynaha deegaanka ku yimiday maray kulmeen minister dheetaayada family business-ku waxa ugu muhiimsan ee Soomaalida sustainable ka noqday maadaama uu ka yahay in marka ay dhahan buu soo jeediyay heer dalba loo qaatay marka arinta initiation-keena inaga deegaankeena leh in ganacsiga qoyska laga dhigo xarun wax soo saar kaabayaasha suuqa oo ku saleysan technology-ga casriga inaan iyadna isticmaalno istiraatiijiyada cusub taageerada dawladda oo ku saleysan hal abuur inaan iyadna la sameeyo fikradaha shaqo ee cusub oo sumadoodu tahay koboc iyadna la sameeyo loo baahan yahay ta ugu dambeysana waa kaydinta fikradaha ganacsiga oo idea banking in la sameeyo diyaargarowga maxaan ka qabanay waa mideynta qorshihii baan diyaarinay ilaa waxaan u dhaadhicinay heer magaalada u dhaadhicinay khibrad wadaagna waan geynay sidoo kale waxaan qabanay shirarka kala duwan si loo mideeyo qorshaha iyo horumarka socda qiimeynta waxbarashada warbixinta taageerada kulliyadaha iyo magaalooyinka inta waan sameyn waxaan u qaybinaa sanadku sidoo qaybsan yahay waa 4 kwartar weey 4 kwartar 2 kwartar goobtoodan ugu tagnaa 2 kwartarna waan isku yeernaa meel go'aan baan isku nimaadnaa oo ku qiimeynaa marka waxyaalahaasi
waxaan ku bixinay maaha fault finder kaliya kuliyadaha iyo magaalooyinka shaqo abuurka markaan booqano taageeradii ku habboonaan waan siinaa on the spot baan idhahnaa halkaa iyo halkaa iyo halkaa iska sax waxaa shaqada bilaabay oo institutional capacity building ka mid ah waxyaabaha hadda aan qabanay dhismaha hay'adeed ka mid ah kuliyadaha farsamada erar baa bilowday iyo kuliyad gaar loo leeyahay dhagax buur labada kuliyadoodna waa soo kordhay ee hadda shaqada bilaabay waxaa shaqada bilaabay adeeg hal goob ee modelka ay jijiyo isna laga dhisay shaqada oo bilaabay kaasina waa dhismaha hay'adeed qayb ka mid ah weey waayaga faahfaahsan 19 muwaadiniin oo dalka dibadda wax ku soo bartay waxaan u fududeynay in aajaag mid loo sameeyo macna shahaadada in loo soo tasdiiqiyo oo tutooda u dhiganta markaasi loo soo qiimeeyo shahaadada 169 department headada ana waxaan barnay tababarka hogaaminta oo dhisida hay'adeed baan ka qaadanay 10 shirkadood kale kormeer lagu soo sameeyay 4 xidmood ee industry extension package kala yiraahdo ayaan ka tababarnay oo ka siinay macna kubcintooda awoodaan aan ka qabanay waa technical technology casing and entrepreneurship way afartaasan ka tababarnay 5S wax la yiraahdo apply garanayna anagu koo waa sort out laba waxa weeyaan set in order saddex waxa weeyaan shine afar waxa weeyaan standardize shan waxa weeyaan sustain shantaasaan ku shaqeynaa marka anagu waxa weeyaan laba kuliyood baa la furay saan soo sheegay ku noqon maayo dabagalka xaqiijinta tayada tababarada 30% oo lagu bixiyo kuliyadaha dhexdooda taana waxa weeye waan qabanayna dhinaca qiimeynta xirfadlayaasha dhameystay xaggan waa COC-gi weeye waxa uu qorsheysnaa 15 kun oo qof inay imtixaan ka qaadaan waxay ka qaadeen imtixaanka xaqiijinta xirfadlayaasha 8516 qiimeynta xirfadlayaasha dhameystay tababarada kuwaas oo tababarada dhaadheer tababarada gaagaaban 17 kan ka qaadan bahayd 4592 ka qaadeen macni min mooyaale ilaa iyo hadhagaale ilaa iyo xaggan ka gaarsiy wardheer charati dhammaan 11 gobol ee deegaanka waxay uga adeegan jigjiga soo saaridda qiimeeyaal cusub accessories la soo saaro 120 accessories la soo saaro qorsho ah 90 kamid ah la soo saaray soo saaridda goobo cusub oo lagu qaado qiimeynta 7 goobood cusub in la soo saaray 6 goobood baa la soo saaray in dib loo cusboonaysiin lagu sameeyo goobo qiimeynayadii hore ee sii jiray 40 goobo qiimeynado hore oo sii jiray assessment center sii jiray ayaa in dib habeen lagu sameeyo qorsho ah 35 kamid ah lagu sameeyay tababarka ku saabsan nidaamka loo qaadayo qiimeynta ama assessment training methodology 90 boo qorsho ah 90 kii buu fulay markaa xaqiijinta xirfadlayaasha kala duwan ee ka shaqeeya xafiisyada dawladda 300 in la qiimeeyo ahaa 295 kamid ah la qiimeeyay marka siinta shahaadooyinka ardayda ku guuleystay tababarada dhaadheer 11 kun oo shahaadeen la bixiyo ahaa 10 kun oo shahaado 10175 shahaado la bixiyo 92.5% oo dhiganta dhamaystirka qaab dhismeedka wakaaladda in la dhamaystiro hal mar wala dhamaystir marka iyadana qabashada dood cilmiyeed hal dood cilmiyeed oo ku saabsan assessment COC gabay ahayd waa la qaaday marka iyadana gelinta ardayda la qiimeeyay xog kaydiyaha wakaaladda ee database-ka in la digitalization maadaama loo guurayo 20 kun oo arday la galiyay ahayd natiijadoodii 20 kun baa la galiyay waa lagu guuleystay khibrad wadaag in loo tagay deegaamada kale waa loo tagay markaas 3 xubnood baa tagay tan wali waxaan ku jirnaa dhismaha hay'adeed qaybta daraasaadka markaan nimaadno 13 daraasaad oo kala duwan oo daraasaadka baahida soo qaaban sameeynay 12 kamid ah kuliyadaha sameeyay 13 kuliyada erro cusub marka laga reebo 3 kuliyadood 13 kuliyadood hore ee jiray marka laga reebo Jiji Health Science College 12 kali way sameeyeen baahida suuq ee area-ga ay joogaan maxaa looga baahan yahay hal xaban anaga sameeynay waa kuliyada cusub 5 kuliyadood cusub kuliyada erar kuliyada raaso kuliyada ceelweyne kuliyada awbare iyo kuliyada eeshica oo shacabku dhisteen iyo kuliyadan caafimaadka ugu talagalsan oo fiiq inaan ka furnaa rajeynayno 6 kuliyadna xafiiska soo sameeyay market demand assessment wala sameeyay area-gaasi maxaa ka jira waaxyaan ka furnaa ilaa sidii caadigu 20 waaxood iyo 30 waaxood iska dul furimeynay maxaan ka furnaa market demand assessment soo sameeynay kana xafiiska sameeyay marka hirgelinta daraasaadka raad raaca ardaydii kuliyadaha ka qalin jabiyay transfer study lagu soo sameeyo maxaa shaqo galay maxaan shaqo galin waxay qaybay ka shaqeeyaan qaybay shaqada fiican tahay kuwa markaaba shaqo hela daraasaadkana 6 kamid ah soo sameeynay 6da kamid waxa nooga soo baxay 65% oo kamid ah shaqo galeen dadkii 35% oo kamid ah shaqo galin 35% kuna waa 12,350 ka aynu soo identify gareynay ee kiilood marka ay noogu tala galeen bangiyada u shirinayna way marka waa 12,350 throughout the region oo deegaanka oo dhan ka jira marka intaasan soo yeelnay oo natiijada nooga soo baxday noqotay hal daraasado kale waxaan sameynay fursadaha shaqo ee ka jira deegaankeena marka kaan natiijadiisii anagoo ka duulayna raad raaci ardayda sameynay fursadaha shaqo ee ka jira ayaan fursadaha shaqo ee deegaanka ka jira kullinka gareynayna dadka marka
kobcinta awoodda macallimiinta marka loo yimaado waxaa noo qorshaysnayd inaan sixino tababarada cilmi baadhista 200 oo macallin 200 baanu siinay waxaa noo qorshaysnaa macallimiinta ele fursadaha inaan macallimiinta fursad waxbarasho siino 95 macallin 115 macallin baanu siinay waxaa noo qorshaysnaa macallimiinta in la shaqaaleysiiyo ilaa 90 macallin 112 macallin baa la shaqaaleysiin inta badan shaqaaleysiinta maadaama macallimiintu ku badan kulliyada waan ka joojinay waa isku bedel macallinka shaqaysan waaya laga talaabo qaaday iyo booskiisa macallin kale cusub buuxinaa marka laga reebo kulliyada eroon in yaro kooban ku shaqaaleysiinay 99% waxa weeyaan macallimiinta kale waa isku bedeleen ma shaqaaleysiin cusub weey xagga yoolasha markaan faahfaahinay KPI-yada tababarada macallimiinta ee habka silsilada taxana ama value chain-ka la siiyay 310 baa noo qorshaysnaa 340 maashina boqolkii waan ka sareynaa macallimiinta nidaamka casing lagu tababarayay 367 noo qorshaysneed 334 ayaa noo qabsooman 91% tababarada macallimiinta nidaamka horumarinta ganacsiga ama BDS-ka 358 baa noo qorshaysnaa 345 baan ku guuleysanay 96% baa markaa noo qabsoontay tababarka macallimiinta habka minguurinta farsamooyinka casriga teknolojiyada inta la arko in la soo koobi garo la soo minguuriyo inaan ku tababarno 305 macallin baa noo qorshaysneed 290 baan ku tababarnay markaa 95% iyadna way noo qabsoontay intaa waxaan kaga gudbi markaa pilarkii koowaad oo ahaa dhisidda hay'adeed waxaan u gudbi doonaa horumarinta xirfadaha horumarinta xirfadaha markaan u nimaadno tababaradaan bixinaa waa laba waa tababarada dhaadheer iyo tababarada gaagaaban tababarada dhaadheer waxaa noo qorshaysneed sanadkan 2016 inaan qaabilno 12548 arday waxaa noo hirgalay oon helnay oon qaabilnay 9769 oo dhigata 78% baan helnay marka ardayda tababarada dhaadheer ardayda tababarada gaagaaban waxaan qorshaysanay inaan sanadkan gabayaato korka anagoo ku duulayna inaan 15598 tababarada gaagaabana aan bixino waxaa noo hirgalay 11585 oo dhiganta 74.3% weeyaan wax qabadku waa tababarada dhaadheer ay ku gaagaaban tababarada dhaadheer iyo tababarada gaagaaban maxay ku kala duwan yihiin haddaan yar neefiyo aanan ku sii dheeraanaynin tababarada dhaadheer waa ardayda soo dhameeyay dugsiga sare ee dhibciga jaamacadda lagu galiyay waayay ee kulliyadaha galayay way markaas shuruudda waa in soo dhameysay 12 way kuwan kalena dadka siyaabaha kala duwan soo barakacay magaalooyinka soo galay miyiga inta ka yimaadeen gaar ahaan ama abaarihii inta badan abaaraha dadkeena soo barakaciyay abaaru soo barakaciyay magaalada soo galay da'dii iskuulkana dhaafay waa in la siiyo xirfadaha ay suuqa ku gali karaan marka xirfadahaas 45 bari ilaa 6 bilood ku tababarnaa tababarada gaagaaban waa kuwaas markaan eegna saamiga gabdhaha tababarada gaagaaban iyaga ku badan 50% waa gabdho weey tababarada gaagaaban waxa barta tababarada dhaadheer wiilasha ku badan 44% waa rag weey inta kale marka waa dumar mid haddaan dhigna kala de waa la garanayaa baan ka wadnaa waxaan uga tagnay waxa sii socda xagga xirfadaha waxaan guud ahaan kulliyadaha iyo xafiiskuba sameeyeen wacyigelin xirfadaha iyo shaqo abuurka baan sameeynay oo sanadka bilowgiisii si ballaaran goboladu ay og yihiin kulliyadu loo gobol ku taalay way sameeynaysaa anaguna waan sameeynay marka wacyigelin ballaaran baynu sameeynay ardaydii sanadkii hore 2015 fasaxa ku maqnayd ee soo noqotay 3,000 arday baa naga baxay oo fasaxa ku waxbarasho dhimaysan oo fasaxa tagay waxa noo soo noqday 3,034 arday baa noo soo noqday TVET policy-ga waxa ku jirta ardaygu level 3 markuu dhameysto suuqu iska gali karaa intuu shaqo tago soo shaqaysto iyo soo laami oran haddana waxbarashada sii wadanaya markaas maradu si osigiisa haysto waa loo goliyay markaas 34 waa ardayda noocaas ay soo noqotay wali 34 ay ka badiyeen drop out baa ku jira qaar drop out jira marka arday soo noqotay baa jirto iyaguna inta level 3 kolka hore ku joojiyeen ama level 2 level 3 sii wadanaya ama level 3 inta ku joojiyeen level 4 sii wadanaya baa jira sababtaas fikirku isku yar bedelay si ay hadhow macni su'aal ugu yimaadaan waqtigaas aan ku qabano sharaxaya waxa qorshaysneed 3,137 arday inay helaan adeega dhanka la talinta xirfadaha ama vocational counseling waxa la dhahay inay helaan bay ahayd 2,758 arday baa helay oo u dhiganta 89% intaas la siiyay vocational counseling ama la talinta xirfadaha waxa qorshaysneed in 100% ardayda ay ka qayb qaataan waxa la yiraahdo cooperative training ama iskaashi tababarka iskaashiga 82% baa ka qayb qaatay intan hadda waxay uga qayb qaadan waayeen waa siyaabo kala duwan kuwa computer-ka kale inta badan waxay ku dhex qaataan kulliyad tababarka kulliyada la bixiyaa waa 30% oo in school training iyo 70% iyo cooperative training in company training isku jira weey in company-ga aad bin ogeeyay laakiin more of cooperative training baan isticmaalnaa dib u habeynta silsilada taxanaha ee sii jiray
waxaa jiray value chain analysis la sameeyo oo loo sameeyo teknolojiyadani aan sameynayno value chainada la sameeyay 20 kamid oo kuwii sii jiray baan ina noo qorsheysnay inaan dib habeen ku sameeyno 14 kamid baan noo hirgalay diyaarinta silsilada taxanaha ee cusub 47 noo qorsheysneed 53 baan noo qabsoomay boqolkii waan ka saarnay markaa iyada farsamooyinka casriga ee la curiyay ama la miguuriyay 48 farsamo oo cusub inaan soo miguurino qorsheyno ahaa konton ma soo murgurna marka boqolkiiba waan ka sareynaa marka andrina bafay performance farsamooyinka la gudbiyay farsamooyinkii la soo sameyn jiray faraha badnaa teknolojiyada aan sameynay aan bulshada u transfer gareyno oo ay baahi bulshada haysata ay xaliyaan marka taa 74 kamida kuwii hadda koona soo sameynay aan transfer gareyno waxa qorsheenu koob iyo konton baan noo hirgalo 69% ayaan marnay inta galwali nooma hirgalin waana baahi halkan jiro laftirkeedo tusaalahaan iminka bayler oo kalaan soo saaray kulliyadda Geopolitical College calafka xoolaha soo saareen xafiiskana waxay u baahan yihiin waxay ku beelgareyn lahayd marka technology-gaas oo kale ma aan transfer gareyn uu u baahan yahay xafiiska client-ga ana u baahan yahay marka hadda waxyaabahan PP-ga aan ku furi doonay noqon doonta hadii ilaahay raado wada shaqayntii markaan soogaano xafiisyo badan oo noocaasina way jirayaan oo wada leenahay waxyaalaha caynkaas oo kala shirkadaha ka faa'iideystay farsamooyinka la gudbiyay shirkadaha ka faa'iideystay 124 shirkadood inay ka faa'iideystaan bay ahayd 66 shirkadood baa ka faa'iideystay shirkadaha lagu tababaray waa isla intaa uun shirkadaha ka faa'iideysan lagu tababaro qorshaha 124 shirkadood ee u qorsheynay inay ka faa'iideystaanba waa lagu tababaray haddana 66 marka aan helnay uunba aan ku tababarnay marka ayo qaatay way taageerada shirkadaha dhanka adeegga fidinta warshadaha markaan leenahay maxaa noo qorsheysnaa markaas awalan waxaan sameeynay skill gap baan sameeynay kolka hore identification waxaan sameeynay marka 3000 qorsho waxa 3138 shirkadood farsamooyinka ay u baahan yihiin maxay yihiin tababarka ay u baahan yihiin halka uu gaab ku haysta maxay yihiin assessment ku sameeyno intiin ka badan baa noo qabsoomay 3469 baa noo qabsoomay xagga shirkadaha la siiyay adeegga fidinta warshadaha gaabkooda markaan identify gareynay isla iyaga haddana waxaan qorsheysanay inaan siino industry service package inaan siino ama xirmooyinka inaan siino marka intiiba way noo qabsoontay marka waa numberku wuxuu soo noqonaa 3168 aan identification ku sameynay inaan siino marka waxaan siinay 3469 xubnaha shirkadaha la siiyay adeegga fidinta warshadaha taasi waa shirkad oo intaas oo shirkado weeyaan tanna waa xubnihii weeyaan marka waxaan noo qorsheysnaa 9030 qof inaan siino oo xubnaha shirkadahaas 10212 iyadna siinay shirkadaha yaryar ee lagu xidhay shirkadaha dhexe ama waaweyn waxaan noo qorsheysnaa inaan 118 shirkadood kuwa yaryar kuwa dhexe iyo kuwa waaweyn ku xidhno waxaan noo hirgalay 200 oo shirkadood inaan ku xidhno way xagga horumarinta shaqo abuurka aan imaado dadka camalaanta la diiwaan gelinayo qorshe wuxuu ahaa 165 kun oo qof inaan diiwaan gelino 165 kun iyo 500 baan diiwaan gelinay isla inta in wacyigelin la siiyahay wacyigelintiina waan siinay isla dadkaasi waxa ay in la siiyo haddana adeegga talabixintana waanu siinay marka dadkaas goobta lagu diiwaan gelinay ayaanu siinay talabixintana ku siinay dhinaca tababarka shaqaalaha xarumaha adeegga hal goob 266 aan xarumaha adeegga hal goob shaqaalooga inaan tababar siino 178 baan siinay tababarada dumar ganacsiga informal loo bedelo waxba nooma qorsheysnay laakiin 600 oo kamida ayaan noo hirgalay oon qabanay qalabaynta xarunta adeegga hal goob 19 xarumood inaan qalabaynahay hal xarun aan qalabaynay iyadoo miisaanadu inta uu noo saamaxday dumarka 600 baan noo qorsheysnaa 700 baan noo hirgalay marka iyadan xagga daabacada bugaagta istiraatiijiyadaha shaqo abuurka 2875 book inaan turjuno on contextualize gareyno inaan daabacno waxa intiiba waan daabacnay xarumaha adeegga hal goob ee 60 maamul magaalada waan dhignay 400 book baan u dhignay marka istiraatiijiyadaha qofka isticmaalkaas ayuu ka helayaa way qalabka biometric ee lagu diiwaan gelinayo dadka database-kaasi 5 xarumood inaan dhignay ahayd 5 maamul magaalo 6 maamul magaalo marka wajaale laga reebo 5 kale waan dhignay wajaale maxaan u dhigi weynay adeegga hal goob ma laha oo kama shaqeeyo waa sababta way laakiin boroska ku jiraan kuwa kale noo soo socdaan ku dari doonaa hadii ilaahay laakiin 5 kale way ka jiraan xagga shaqo abuurka maxaan noo qorsheysnaa sanadkan shaqo abuur sameeyno 132 iyo 140 baan noo qorsheysnaa maxay noo hirgalay 147 boqolkiiba ka sareysa shaqo abuurka waa kuwii faataxada uu sheegayo shaqo abuurka ugu badan faatax waa sameeyay sector bureaus kani waxay monthly bay noo siiyaan report wali weekly baan kaga qaadanaa imika kuwaas marka reportkoogu waxaan hadda ku soo jeedinaa halka inta deynta ka qaadatay waa in kooban way waxa deynta ka qaadatay waa waxaan gaaraynin I think waa 800 meelahaas aan malayn inta deynta aan siinay inta kale oo waa meelahaas marka saddex sector baa ayaa shaqo abuurka looga sameeyo waa beeraha warshadaha iyo adeegga way
كون بقول صدني لبضن كون بقول أفرتن كان لبعتن برسنتيو كمية وين agriculture كجلان تطبيق ستن برسنتيو كمية أنا وحوي أنا وورشة هوي صدق لبعتن كمية أنا وأديك هوي because أديك وان discourage كرينا وحن أدو أو encourage كرينا ورشة يرير يو بحال يبيره ما دام حق أسيدنا على سعودية هاي حق سامي كمر كانوا نمادنا ميجي مقالة ده قرشين نوحها أفرتني لا برسنتين ميجا لقى سامي ميجا وحنو قاعدين يدقموين ليه ما مقالو بالمقالو قاعدين magacaasi xogaa kulay in yar bedeli doonaa laakiin hadda miyi waxaan naqaanaa marka laga reebo lixda maamul magaalo inta kale iyo xarumaha gobolada marka laga reebo waxa qorshaysnaa markaasi miyiga 42% aan ka dhigno magaaladan inaan ka dhigno 58% magaalada 58% baan ku guuleysanay miyigana 48 ayaa ka qabsoomay labiya dhidig 50-50 laga dhigay ahayd almost xagga dumarku 44% inta ka qayb gashay raguna waxa weeyaan waa 56% inuu balance yahay u badan tahay xagga fursadaha shaqo abuurka sector-ka laga hirgeliyay dhinaca miyiga iyo magaalada iyo wadarta xagga beeraha markaan u nimaadno dhinaca miyiga waxa laga hirgeliyay 33779 xagga magaalooyinkana waxa laga hirgeliyay 28515 waxa isku noqonaya totalkoodu 16694 dhinaca warshadaha waa saas oo kale adeega wada aragtaan wadarta guud ee marka intaas sanadooda la isku daray guud ahaan marka waxa weey 147 aan ka sheekeynay oo faahfaahsan u weey dhinaca deynta dhinaca kaydsiga deyn soo celinta lacagta saving ee la sameystay ay dadku dhigteen waa 462 milyan 657 weey deynta caadiga waa regular loan-kii uu bankigu bixinay gaar ahaan Shabeelle Bank wuxuu bixiyay deynta caadiga 368 milyan oo bir buu bixiyay dhinaca deynta wareegta 288 milyan baan bixinay deynta wareegta 288 milyan baan bixinay hal riyaalna looma qabanin sanadkan best practice kan ku soo diri doonaa xagga dambe sidee ku timid marka 250 milyan baan markaan u bandayna noo qabanay haddana waxa weeye meel walba degmo waliba 288 milyan baan anagu fasaxnay hadda oo degmooyinka inay gaadha ay tahay waa wixii soo noqday marka waa lacagta la soo celiyay ku dhawaad 300 milyan weey 289 milyan in ka badan oo deyna baa soo noqotay in ka badan maxaan la leeyahay daily waa soo noqotaayo maantan hadlayna maadaama ay soo noqotay dema taagnay oo way sii soconaysaa marka weey guud ahaan marka lacagta la bixiyay marka isku daro revolving fundiga ee deynta wareegtay ee caadiga 656 milyan oo bir baa la bixiyay oo deynta aan ugu tala galnay 65% ka noqonaysa because 1.2 billion inaan bixino qorsheenu ahaa 886 shirkadood ayaa deynta ka faa'iideystay marka oo noqonaya shirkad ahaan intii aan soo dhisnay 26% oo kamid ah dadkii aan ugu tala galnay deynta ayaa deynta helay way xubnaha markaan u nimaadnaa ama shakhsiyaadka 3158 qof ama shakhsi ayaa ka faa'iideystay oo dhigna 35% oo dhigma dadkan deynta ugu tala galnay fikirka in la maalgeliyo ahayd ama waxaan proof la yiraahdo cusub oo la maalgeliyo konton shirkadood baan ka maalgelin konton ka shirkadood proof heer dal baa loo tartamaa degmooyinka laga soo bilaabay gobolada la keenay waa business idea heer deegaan markay yimaadaan baad heer federaal u diray konton baan heer federaal u dirnay hal qof ka guuleysta kontonkii shirkadood anaga nagu soo duldhicin waxaas hawlaan marnay maxaa lacag loo sii waayay dan waa anaga maalgelinay markaas konton ka shirkadood kun xataa xirfadlayaasha aan maalgelinay 886 shirkadooda afar shirkadood waxa ku jira iyaguna gabdhihii ka qalin jabiyay Chicago Polytechnic College cunta karinta bartay food preparation ka bartay deynta caadiga la soo celiyay waa 463 way marka almost way isku dhowdhoyn hadda deynta caadiga iyo teeni inta la soo celiya marka teeni revolving si fiican baa la soo celiya dhinacan iyagu waa iska tababarada istiraatiijiyada cusub ee horumarinta shirkadaha qorsheenu 100 buu ahaa 100kiiba uu fulay dhinaca darajasiinta shirkadaha 60 shirkadood darajasiin la siiyay 55 baa la siiyay dhinaca TOT-ga horumarinta ganacsiga 40 buu ahaa qorshe 40kiiba la siiyay dhinaca shirkadaha la siinay tababarada maamulka ganacsiga 650 baa 638 baa la siiyay tirada shirkadaha la siiyay adeega hanti dhawrka 850 baa 640 baa la siiyay kormeerka tababarku laba jeer buu ahaa laba jeer buu qabsoomay diyaarinta dhulka shirkadaha loogu tala galay 300 hektaar baan oo ayaa qorsho ahaa qorshaha waxaan ka qaadanay xafiiska waraabka duxooyinka waa dhulkan gabiye laga sameeyay iyo godi Shabeelle laga sameeyay way 300 buu ahaa 300 bay inoo hirgash dhulka la diyaarinay xagan waa magaalooyinkii 10 hektaar la diyaariyo ahaa 800 oo kilomitir baan aysan laakiin 4 hektaar waa kii dambe hadda limaad banki naga rabay hadda la sii daayay 4.8 baa marka inoo hirgalay marka waan roonay hadda waa kii dambe marka limaad banki inoo hirgalay 4 hektaar ku hel shaydiska la dhisay laba shayr la dhisay laba shayr baan dhisnay mid uu dhamaaday waa koonburidu shaqeynaya midna wuxuu ka socdaa xeer dhigtii hore maamulka magaalada Juju ka socdaa
shirkadaha ka faa'iidaystay 299 bay ahaayeen 56 baa ka faa'iidaystay tirada shareska loo dhameystiray adeegyada sida leydhkii iyo biyo-gelintii labay ahaayeen labadiiba markaa waan sameynay iyadan intani waa koritaanka shirkadaha darajin shigir bay sameeyaan shirkadaha darajada si yar ee microga qorsheenu waxa 400 baa noo hirgalay marka waa 133% way shirkadaha gudbay ee darajada si yar ka gudbay u gudbay smallka ama kuwa darajada yar u gudbay 450 qorsheenu ah 513 shirkadood baa u gudbay shirkadaha ka gudbay darajada yar u gudbay darajada dhexe ama mediumka 50 qorsheenu ah 74 baa noo hirgalay waa darajintu waa bilar kale oo lanagu qiimeeyo isku xirka suuqa market linkage marka la yiraahdo qorsheenu waxa inaan 60 milyan market linkage bazaarada iyo market linkage-dana sameynayna in laga helo 60 milyan waxa weeyaan 57% baa noo hirgalo 34 milyan 446 734 wax qabadka mashaariicda dhismaha workshopka alxanka ee qabri daare shaqadiisii way socotay waxoogaa lacag laanta baa ku dulacday 74% oo maraya dhismaha hoyga ardayda TVET-ka qabri daare shaqa kama soconin go'aanada markaan qaadanay kadib hadda shaqa laga bilaabay waxba ka socday 1% waa ku beeray laakiin anaga targetkeenu 100% inaan dhameeyno aha dhismaha hoyga ardayda ee TVET-ka jigjiga 60% buu gundhigiisii hore ahaa 100% inaan dhameystirno aha 78% oo maraya si fiican ugu socdaa shaqadu way socotay dhismaha TVET-ka oo bare oo lot 1 ah lot 1 100% inaan dhameystirno aha waa lotka kaliya kulliyada lagu haya 83% maraya 70 waan ka soo qaadnay dhismaha TVET-ka oo bare lot 2 u dhameystiran yahay lot 3 kala hore waan dhameystiran oo dhameystiran yahay wadooyinkii aan ku darnay oo wax yar aan design-ka ku celinay oo ay dhubnaadeen wadada ayara sidii loogu talagalay in iyo ku noqday ma imkana shaqada way ka socotaa waa wadooyin marka laakiin dhismaha kale oo dhameystiran yahay iyada dhismaha ceelweyne TVET lot 4 lot 5 iyo lot 6 100% way dhameystiran yihiin wadooyinkii waa ku socda gobolkiina kale way joogaan way ogin baan u marinay dhismo 100% u dhamaaday dhismaha raasa TVET oo lot 7 ah 100% u gaaray 82% maraya labadan kale 99% bay marayaan almost waa 100 laakiin financial lacag bay nagu leeyihiin inaan ka soo sheegareyno maadaama ay tahay sababtaas 99 laakiin labada lot way dhamaadeen halka lot baa dhiman iyadana dhismaha dayactirka kulliyada Hadhagaale oo doormigo burburay iyo clinic burburay ah 100% oo dhameystiran waana shaqo galay oo shaqeeya markaas dhinaca isticmaalka miisaaniyadda mushaarku 17 milyan baa lahayn adoo 88% baan isticmaalay dadina shaqaaleysiino qorshaha maadaama aan space aysan wax weyn shaqaaleysiinin marka uu iska yeela mushaarkaas horumarinta caga mashaariicda iyo capitalka marka loo yimaado 460 milyan baan lahayn 345 baan isticmaalay 80% waa isticmaalkaygu